واي tamartii waa guurtay walax bay guurtay wax singularity laha samaystay maatarkii ugu horeeyay oo area yar ku urursan oo higher energeticna particleski marka kuwad baa samaysmay quarks baa soo waxa loo yaqaan quarks iyo leptons quarks waa saxarada yar yar ee uu ka sii kooban yihiin protronada iyo neutronada ay ka sii kooban yihiin leptonskana waxa ka sii kooban electronada saxaradaas samaysmay waxa quantum physics loo yaqaan saxaradaas markay samaysmeen kadib after 1 second inta hore second hore dhexdood bay ku samaysmeen fraction of seconds ayay ku samaysmeen waxa samaysmay proton iyo neutron bay dhaxday kadib haddana waxa samaysmay curiyaashii dunida ugu horeeyay oo curiya noqda helium iyo hydrogen and helium yaguna after 1 second ayuun bay samaysmeen markii laga joogay qiyaas ahaan sida la qiyaasay ama ilayska iyo weefiska la qabtay university laga qabtay laga fahmay 380,000 oo sanadood ka bacdi waxa samaysmay normal atomiska sida oxygen iyo carbono iyo atomyo badan oo kale kamid ah kuwii kalena maalinba qayb kamid ah ayay sii samaysanayeen intaasi waa qaabka ay u kala samaysmeen waxa aynu ku yara noqonaynaa marka uu energy-gu matter guureeyay waxa dhacay marka qaraxaasi maxaa sababay la garan maayo aragtiyo waa jirtaa oo aragtiyo aad u badan way jirtaa oo experiment lagu sameeyay wali balse haddana waxba u dhiman aragtiyaas waxay tilmaamaysaa haddii energy fara badan in meel la isugu geeyo in uu gravity-gu kala eriyo waana sababta bay yiraahdeen marka uu qaraxu dhacay waxa iyana meesha ku jirto oo tasaa'ulaadka kamida qaabkee tamartani marka xagga ka timi maxaa ka horeeyay maxaa sababay tamarta yana la garan maayo waa meelaha cilmiga ilaahay inaan koobi karin hadii ay dhacdo ifan waaye marka uu university qaraxaasi dhacay macnaha qarax wax kale lagu tilmaamaan la garanayna laakiin qarax in badan ayuu ka wan yahay xawaaraha uu ku socday iyo qaabka uu dhacay qaraxyada inagu aynu naqaano sababtay tahay marka qaraxaasi dhacay seconds yar gudahood wax ku dhow ayaa university wuxuu ku soo baxay shape kan uu leegi wax ku dhow illa maalinkii qaraxi dhacayna qaraxi baan dhex soconaaba ay leeyihiin saynis yahanadu iyagu waxay leeyihiin marka uu dunidu kala duushay ee kala socotay gravity-gaas kala jiiday ama waxa loo yaqaan dark matter-ku oo saameynta ugu badan ay dhahay way ku leeyihiin inay wali si kala durkayso oo si kala fogaanayso waaya waxa samaysmay 380 waxaan idhaa atomiska badankooda ayaa samaysmay ama curiyaasha ka jira dunida oo maanta lagu qiyaaso ilaa 120 114 inta la daraaseeyay yihiin ilaa 120 wax ku dhowna marka man made-ka waxa bini'aadamku sameeyay lagu daro ay qiyaastooda yihiin oo ah waxa materialka dunida yaal oo dhan inay ka kooban yihiin 114 ka curiya wax kamida wax ka baxsan la heli maayo waxa samaysmay ilaa 4 milyan ilaa 400 milyan ka bacdi xidiga ayay leeyihiin ilaa wax 1 billion ku dhowna waxa samaysmay yani 1 billion after 1 billion big bang-kii markii qaraxi dhacay galaxies-ka waxa loo yaqaano ama waxa ay nahno habarlajiidada ama majara solar system-ku ilaa 500 milyan ilaa 5,000 milyan oo u dhiganta 5 billion ayay waxa weey big bang ka bacdi samaysmeen solar system-kan aynu ku dhex jirno oo ah nidaamkan ku dhex jirno ama majaradan milka waygan ku dhex jirno waxa ay ka sii kooban tahay qorraxda iyo planets-ka ku wareegaya waxa loo yaqaanaa milky way oo kaasa solar system ah solar system kaas oo ah ka qorraxda ku xeeran ayaa xilligaas samaysmay kadib ilaa hadda la soo gaadhay ilaa maanta marka waxa socda bay yiraahdeen kala cararkii oo university-gu kala durkay ama qaab qaraxo kale uu sameeyay wali way sii socotaa marka university wuxuu ka bilaabmay point yar dabadna waa kala fida dabadna wuxuu sameeyay muuqaalka sida koonka ama sida masafka ama sida ay nahno gees qaabka geeska oo kale qayb kamid ah culimada
muslimiinta oo icjaasul cilmiga ka sheekeeya ayaa waxay yidhahdeen suurka la tilmaamayaaba waxa macquula inuu yahay qaabkan oo koonku yahay oo qaabkii suur buu samaysan yahay ama qaab gees buu samaysan yahay marka la afuufana marka ay tahay oo university u dhamaaday ee gabagabadiisa ay galayso oo kala tagayo inta kalena waxa weeye oo sidaa u kala soconayo oo kala durkayo ma odhanayno waxa weeye boqol bay sax tahay ma odhan karno boqol bay qalad tahay waa macluumaad soo kordhay oo aan cilmu qaybka mudlaqana ku jirin waxyaabaha isweydiinta leh marka la yiri big bang ba dhacay ama qarax ba dhacay waxa imanaysa qarax inuu dhacay oo qaabka university ka soo bilowmay oo qaabka yihiin maxaa cadayn saynisyahan ku haya cadayntii ugu horeysay nin Hubble la oran jiray oo xidiga aad u daraasayn jiray ayaa wuxuu ogaaday in xidiguhu ay sanadkii about 5 meter kala durkaan labada xidigood masaafada u dhaxaysa 5 meter ay durugto dibadna xidigta ku sii xigta iyo majaraadku ay sii kala durkaan dabadna xidiga badan ayuu teleskoobyadiisi ku eegay wuxuu dareemay markaa in maadaama sanad kasta sidaa u kala durkayaan ay muddo badan sidaa u soo kala durkayeen berigii horena ay inta iskaga dhawaayeen dabadna wuu duuba 5 meter mar walba ka jaraa wuu xisaabiyaa sanadkii 5 meter bay durugtay dib uu duuba wuxuu soo saaray masaafo ku dhow markay hal meel isugu tageen point yar isugu geeyay xidigyo dhan wuxuu soo saaray cabir ah inuu university bartaas ka soo bilowmay maalinkaas 13 billion 0.5 ama 13.5 billion years يعني 13 billion iyo badh sanadood ka hor ayay tagtay marka wuxuu yiri waa cimrul kown ama waa age of the universe saynisyahanadii ka dambeeyay halkaas marka waxa laga yara fahmay aragtida ah singularity-ga oo inay meel ka wada yimaadeen hal point ka soo wada baxeen dadna uu soo kala durkay university hal nuqdo kaliya ka dilaa taasi waxay noqotay markii dambe ee uu isaga dhintay saynisyahanadii daraaseen iyo big bang-ka inay tiisi dalishadaan taas waa caday in horta hal meel ka wada yimid iyadoo qarax ma sheegayso tamar ma sheegayso laakiin waxa iga maqan qaybta sheegaysa qarax iyo inay tamar la helo laakiin waxay cadayn u tahay inay hal meel ka soo wada bilowmeen waxyaabaha isweydiinta yar waxa weeye xidigtu inay sii socoto sii durkayso inay soo durkayso maxaa lagu ogaan karaa iyaduna meeshii imanaysa waxa jirta wax la yiraahdo red shift ama red shift iyo blue shift oo xidigaha qaarkood waxay u soo guurayaan casaan xidig baad eegaysaa sanad baad eegtay sanadkii ka dambeeyay kadib haddana dib u eegtay waxay soo baxaysaa casaan ama sanadkii hore aad eegtay iyadoo aan casaan ahayd dabadna waxay soo baxday blue waxay dhadaan arintaas waxay cadaynaysaa waxa jira wax la xeerka wave-isku markay kugu soo socdaan tamartooda soo weynaata color-iskuna had iyo jeer waxay u leeyihiin wave-iska qaabka ay u kala waaweyn yihiin markasta oo tamarta ilayso ku soconayo ay ka weynaato qaabkii casaanka waxay u guurtaa blue iyo white dabadna haddana dark haddii blue tahayna ama ay dark ahaydna waxay soo guurtaa marka hore white kadib haddana blue dabadna waxay u guurtaa red waa markay tamartu sii yaraato marka xidigti markay sii fogaato tamartii ka ilayskii ka imanaysa tamartiisa ayaa soo daciifaysa waxa inagu imanaya visible light-ka oo ah falaadhaha isha bini'aadanka ay arki karto ta ugu dambaysa ugu tamarta dambaysa oo ah casaanka haddii xidigtu ay soo socoto iyadoo casaan ah ay xaggaaga soo qabato tamarta falaadhaha ilayska ta ugu tamarta weyn la ay guuraysaa oo kuwa ugu tamarta weyn ee isha bini'aadanka aragta waxa kamid ah violet-ka iyo ultraviolet-ka qaybo kamid ah ultraviolet ama color-ka blue-ga soo xiga marka violet-ka oo ah color blue soo xiga hadii ay bixiso waxa way xidigtan kugu soo socota tamarta ay soo deynaysan way soo weynaynaysaa maadaama xagga ku soo socoto sida waxa la mid ah gaari ambulance haduu kugu soo socdo wiiqdiis way soo weynaynaysaa wiiq way soo noqonaysaa hadii uu sii socdana way sii yaraanaysaa diyaaradaha kale ayna la mid ah marka xidigu haday soo socdaan waxay isu bedelaan blue hadii ay kaasi durkayaanna waxa ay sameeyaan casaan marka wuxuu ka gartay qaabka guurguuritaanka masaafada asee lagu soo saaraya
iyada waxa la sameeysanaya wax la yaqaan xisaabta similarity loo yaqaan la qaadanaya marka koonka wax loo qaadanaya diagram aad waraaq ku haysatay ama aad ugu meeshaad ku sawiratay qaabka xisaabaad ka masaafada ku soo saareentay Turkiga saynisyahanka ka bacdi saynisyahan labaad ayaa isagoo aan uba jeedin oo raadiyo ama rakibaya waxaan loo yaqaano radarka ama qalabkan wave-ka soo qabta ayaa waxa ku soo baxay waves marka markasta wuxuu ka dhaxarkaa shaashadihiisa ama receiverkiisa ama receiverkii TV-giisa wave wuu siro gareeyaa raadarrada dhan iska saaraa wuxuu iska xidhaa khadadka wave ka soo galayso dhan haddana waxa ku soo baxa wave-kaas waxa tusaale u ah markaynu inagu TV-geena shidno inuu qaab shucaaceed uu bixiyo bilig yar uu bixiyo wuu yaabay wuxuu yiri waveska dhan waan iska wada xidhaya waveska maxay haayeen radarkii dacal kasta uu jeediyaa every direction of the universe waxa ka imanaya waveska marka waxa loo bixiyay kadib intii ka dambeysay la daraasay waxa loo bixiyay CBM ama cosmic background microwave oo ah microwaves kuwa mobilada ka shaqeeyaan ama mobilkeenu soo qabto kuwaas nooca ugu yar inay universe ku dhan ka buuxaan oo meel kasta direction kasta radarada loo jeediyo soo qabanayo waveskan waxa soo saarta meel buu ka yimi waxa loo baahan yahay resource soo saartay way wavesyada dunida ka jiro dhan inagu mobilka aynu ku hadlayno waveskiisa waxa soo saara shirkadaha isgaarsiinta soo saara waxa loo baahday meesha resource uu ka yimi waa la waay waxa laga eegay satellite-yada waxa la eegay planets oo dhan dhammaan universe-ga wave-kan uu ka jira waxaana loo yaqaanaa al-ishcaacaat al-khalfiyya carabi Englishna waxa lagu yaqaanaa waxa loo yiraahdaa cosmic background microwaves ama cosmic microwave background markii la baaray waxa la ogaaday in waveskan ay yihiin qaraxii koobaad ee universe-ku ka bilowmay ka bacdi dabeedna markasta ay tamartu sii yaraanaysay deedna hadda ay marayso 2.7 qiyaas meelahaas ay marayso marka loo eego temperature-keeda yani temperature-ka wave-kan ku shaqeynayo waxa la yiri bal qiyaasaad si loo sameeyo bal ha laga qiyaaso in waveska la duubo oo yeer kasta inta tamartii ka lumaysa lagu daro oo dabeedna bal laga qiyaaso maalinkii wave-kaasi bilowmay masaafada inta waxa weeye xilligu soo bilowmay xilliga ahayd si time looga dhaxfahmo waxa la soo saaray 13.8 billion years ago xilliga waxa wave qarax yani imka wave-yadoo dhan waa isku wada nooc marka hore haddii imka dab uu sii daayo kul oo loo yaqaan infrared marka ay tamartiisu sii yaraato wuxuu isu bedelaa ka ku xiga oo wuxuu isu bedelaa microwave radio wave ayuu kadib marka dambe isu sii bedelaa darajada ugu hooseysan waxa ku jooga microwaves marka tamar kasta marka ay tamarteedu ka yaraato wuxuu isu bedelsaa ku xigta markay weynaatana ta ka sareysa sida awgeed inagu qudhina markay dab shidno ama walax kululeyno marka hore waxay soo deysaa kul ama ka kuleed ayaa ka soo gaadhaya kadib waxay u guurtaa hadana in ay soo deyso ay casaan bixiso kadib deedna inay cadaato sida marka kuwa alxamka oo kale kuwan tumaalayaashu ay tumaan oo kalena waxay soo baxdaa red oo kale biraha markay dab geliyaan markasta oo tamarta ay sii weynaato waxay isu bedeshaa waxa weeye ilayska ka sareeya ama wave-ka ka sareeya isu bedelaa markasta ay daciiftana wuxuu isu bedelaa ka hooseeya marka waxa jira spectrum wax la shaxan lagu muujiyo shaxanka halkan inooga muuqan doona shaxankaas marka wuxuu sheegayaa say kala tamar waaweyn yihiin mid kastana marka tamarteedu yaraato ta ku xigtay guurisa waan isku group waa la duubay marka waxa lagu duubay bal darajo qarax in la gaarsiiyo markii qaraxa koobaad uu dhacay waxa soo baxay time-ka ah 13.8 marka halka waxa laga qiyaasay oo la yiri wax ka saxnaan badan tahay taxidiga oo iyaga aan la tagi karno xisaabaad estimator lagu soo saaray marka waxay yiraahdeen maadaama labadii xisaabood bay isku dhawaadeen oo mid walba 13 billion years ago ay soo saartay in ay suurtagal tahay waliba 95% ay run tahay in qaabka qarax u dhacayo halka ka soo bilowday waa laba cadaymood marka aad u waaweyn waa evidence ugu weyn hayaan waxa jirta xeer saddexaad ama qaab saddexaad telescope-yada ayaa xidigaha kugu soo socda lagu eego ama universe-ga direction kasta oo lagu eego
xidigtu muddo badan ayay soo safraysaa halkii qaraxu ka dhacayna haddii dib loo eego oo la eego telescope-yada lagu eego light-ka speed of light-ka la adeegsado ama telescope-ka leesku soo qabanaya la adeegsado waxa weeye macnaheedu in time-kii dib loo raacayo oo meel la soo dhaafay dib loo soo macluumaadkeedii loo soo helayo reverses the direction of the time waxa aynu reverse garanaynaa direction of the time waxa jira muuqaalo ay dadku ka fahansan yihiin qaabka uu time-ku yahay fardiyada inaga inagama suurtagal aha maadaama fahamkeenu uu kooban yahay inaan daraasaad badan oo saynisna ayna sii samayn in time-ka dib loo raaco laakiin fardiyad waxa jira xisaabaadka sayniska maanta jira ay cadeynayaan in time-ka dib loo raaci karo laakiin waa fardiya aan suurtagal ahay waa ihtimaal waa haddii ay hal rule la helo dib waa loo raaci karaa laakiin ruleski ku xidhnaa ee barrierska ka ahaa ayaa inagu adag inaan helo mar kasta oo telescopeska aynu ku eegno directionada iyo xidigo inaga fog waxa weeye waa looking back the time waa inaan dib u eegayno waqti la soo dhaafay waxay cadeynayaan markaa xidigahaasi stages big bang ku dhow xilliga qaraxu dhow ku dhow oo tusaale ahaan xidiga qaarkood ayaa waxay ka kooban yihiin labadii curiye koobaad ay nidhi way horaan samaysmeen oo hydrogen iyo helium qaarkoodna waxay ka sii samaysan yihiin gas helium oo compound iyo hydrogen oo ay isku sameeyeen arintaas waxay cadeynaysaa markaa oo ay cadeyn saddexaad u tahay oo ka laakiin awood yar labadii cadeymood hore inuu dhacay big bang elementiska university ka jira iyaguna cadeyn bay yihiin qaabka mixtures ku yihiin halkaas ayaynu ku joojinaynaa aad iyo aad ba mahadsantiin tacliiqaadkiina iyo waa muhiim waxa aad ku daraysaan ama waxa aad su'aal naga weydiinaysaan xalqadaha ku xiga ayaynu kaga sheekayn doonaa waxa uu ka sii kooban yahay marka university structure-kiisu qaabku uu samaysan yahay iyo waxa uu ka kooban yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.